markii ay ubad isku dhali waayeen ayaa la kala geeyay waxaanay ka tahriibeen dalka balse maxaa dhacay tahriibka kadib wax aad jeceshahay inay dhacaan bad waaysa waqti qaarkood waxa dhacay markaan badda ka talaabay inaan gabadhii warqadii soo siiyay oo aan soo furay waxa uu la ilmeynayaa marla aragtii uu nolosha la wadaagay 20 sanadood ka hor taasoo aan ilaa hadda ka maydhmin maskaxdiisa qofka dambe aad la kulmi doontaa sida uu ku la noolaan doono ama sida uu ku la dhaqmi doono yani sida ku garan doono ka heli doono ka fikraa balse haddii bini aadanka calooshooda la itusi lahaa waan arki karin calooshooda haddii la itusi lahaa waxa aan ku doori lahaa qofkii ku qarmay laakiin ma arki kara calooshooda waxa uu ka taariibay dalka kadib markii uu la kulmay culays bulsho oo la xiriira isaga iyo lamaanihiisa oo ifka isugu jeclaa balse muddo 6 sanadood ahaan ilaahay ku arsaaqin wax u wada waxa uu sheegay in qoraalka Allah ay taasi ku xidhnayd balse iyagu ay isku ahaayeen ubad haysta farxadii adduunka iyagoo ku wada noolaa hal qol iyo hal furaash quudna waxa uu ahaa wixii waalidkoodu uu keeno guriga nolosha aan ku noolayn iyo farxadda aan u haysanay iyo habka aan u noolayn waa hab aan u malaynaynin inaan u noolaan doono tusaalaha farxadda iyo nolosha aan haystay waxa weeye waxaan dal guriga qolna laga siiyay halkaas aan deganeyn waxa la soo martay waqtiga qaarkood aan hal barkin wadaagaynay ayaan soo martay markii uu badweynta ka gudbay ee uu ku guuleystay tahriibkiisa ayaa iyadoo weli sugaysa warqadeedii furiinka u soo diray culays badan bay la kulantay loo soo tacsiday sidii qof uu dhintay oo kale ee lagu soo tacsiday dadku si tacsido kale ugu yimaadeen oo ku noolaan karo bulshada dhexdeeda dad la garanayo waxay noqotay bukaan dhulyaal ah iyada oo nool ayaa loo tacsiyeeyay waxaanay go'aansatay inay qaado dhabbihii uu maray oo ay ka haajirto dadkii iyo dalkaba si ay uga dhuumato dadka sida dhambaalada baroordiiqda ah ee wehelkeedii nolosha oo war lama filaan ah ka soo gaadhay muddo kadib markii tallaabo kasta uu qaaday ay ku adkaatay waxa uu go'aansaday inuu cafis weydiisto balse waxa uu la kulmay lama filaan kale waana mid keentay in barnaamijka uu socda uu ilmada cishan waayo waxaan ku markaa walaal waxaan rabaa inaad isaamaxdo waxaan arkay waxaan abaalkayga ahayn baan la kulmay balse waxaan kaa xudsanayaa saamaxaad baan maragabnay waxaan u malaynayaa ama aan jeclahay inay xaggaaga wax ka socdaan way isaamax haddaba jawaabta aan ka helay iyada way ayaa ka sii wanaag ayaa waxa ay noqotay wax maskaxdeedii ka weynaada oo haban anigiiba qaadi kari waayo magaciisu waa Cabdi Curiye waa fanaan iyo abwaan waxa uu barnaamijka bandhiga beershiye igula wadaagay 4 qiso oo waaweyn oo dhammaantood dareenkooda wata sidaas awgeed ayaan u go'aansanay inaan xalqado kala duwan idinka dhigno ku soo dhawaada qisada marla arag iyo xiisaha kulamaan qofku inuu qalad baan sameeyay ma ha waxan anu cabsi kama qabo laakiin dadku waxay u aqaanaan inay tahay wax qaldan oo ma way in kaliya bulshada Soomaaliyeed daawanaysa way halka waxaan la soo fariistay waa nolosheedii laakiin ku raaxaysanay Ilaahayna ugu naxariisanaya wad ma santahay Aydrus qisadaasi waa qiso aan ku tilmaami karo macaan iyo qaraad nolosha darisa oo waliba bahwadaaga oo xiriir badan ka dhaxeeyo aan ku tilmaami karo macaan iyo qaraad daris nolosha ku ah xiriirna ka dhaxeeyo waliba oo bahwadaaga qisadaasi waxay ahayd qisada igu kaliftay in aan badweyn ka talaabo oo aan ku talaabo
wax aan badweyn loogu talagelin in lagaga tallaabo. waa qisada sababta u ahayd inaan caga dhigto dhul shisheeye aan aado oo aan magaranaysaa aan daris la noqdo dad aan garanaynin asal waxaan ahay. aan ka gudbo waxa dhacday waqtiyada ka mid ah inaan kulannay gabadhaasi haddii aan silaa maanta dee suuree kulantidii aad la kulantay sidii ilaahay uu sameeyey ama habkii ay ahayd ama indhaha kusii arkayeen ama maskaxdaada kusii arkaysay maaha mid aan sharxi kara imika oo aan dee qiimeyn karaa ama waqti bay naga qaadanaysaa. gabadhaasi Djibouti waan isku barannay, Djibouti waan ku kulannay, hase ahaatee waxaana dhex maray xidhiidh salka ma garanaysaa ka adag oo aan odhan karo wuxuu ahaa geed aan ku tilmaami karo xididadiisu ay yihiin kuwa hoos aad muddada ma garanaysaa dhulka in badan hoos u jira. waxa dhacday gabadhii waxaanu markaa alkunnay ama aanu abuurnay xiriir jacayl ayaan gabadha abuurnay. xiriirkaa jacayl wuxuu ahaa mid dhadhankiisa uu aad u heer sarreeyo oo ma garanaysaa dhadhan macaan leh. hase ahaatee waxaanu ku tashanay inaan u guurino oo aanu u ma garanaysaa haajirno nolosha dhabta ah, inaan nolosha ku midowno oo aan nolosha wadaagno inta nolosha nooga dhimanna aan cimrigayaga dhammaysano ayaan go-aan ku gaadhnay. balse gacanta waxba iguma jiraan, ma haysta waxaan loola tagay reerkoodii, ma haysta waxaan dadkoodii aan ma garanaysaa la hor fadhiista. dee waxa dhacday xilliga da'daada oo kale haddaynu aad ku yarayd markaa nin shaqaysanaya maad ahayn oo way maan ahayn. waxaan ahaa nin hooyadii iyo aabbihii iyo walaalihii la nool oo weli la korinayo oo dee anigii baa korriin igu socday. anigoo korriin igu socdo ayaan haddana koruboodi. waxa dhacday markaa in dee talo nagu cakirantay, dee talo nagu cidhiidh nagu noqotay. alla waxaanu yeelaan garaweynay. hase ahaatee waan calool adeegay, waxaan go-aan qaatay iyadna aan la wadaagay gabadhii in aan horta marka hore balse aan u noolaan doonaay haba dambayse bal horta aan isku miineeyo ciddii ay ka dhalatay gabadhu isku dhiibadii. waxaan xasuustaa in aan aniga iyo laba wiil oo saaxiibaday ah annagoo dee gacanta aan wax buuran ku haysanin waa la sheegi karaa hadda aan reerkii tegnay annagoon ma garanaysaa xataa aan odayaal wadanin. 3 nin dhalinyaro ku tegnay reerkii, laakiin waxaa naloo soo dhaweeyey si kal iyo laab ah ayaa naloo soo dhaweeyey. waxaana loo qaabilay si qurux badan, aad u qurux badan baan loo qaabilay oo farxadii ay ku dheehan tahay. muraadkii aan lahaa markaa oo dunida igala qaalisanaa lah waa laygu bashaariyey inaan gacanta ku haysto. halkiiba hawshii laygu dhameeyey. marka inantii baa lagu siiyey? inantii waa lay siiyey, meherkiina waa lay raaciyey weliba. allahu akbar. waxa dhacday markaa anigoo aad u faraxsan aan ka nimi, balse hawshii badh ka midii dee uu dhacay ay dhacday oo dee ay noo hadhan tahay. haddaba waa yahay balse loo noolaan doonaa, halkee la aadi doonaa, maxaa la cuni doonaa, cadceedda iyo dhaxanta iyo roobka halkee laga gali doonaa, halkee lagu dhaqmi doonaa meesha taalla. waxay ka maarmi weyday inaan haddana ismiineeyo oo aan aniga oo dee rarkaygii wata aan hooyadii iyo aabbahay halkii aan ku noolaa aan u soo bandhigo in aan dee hawshaasi ay soo korodhay oo maanta aniga awalii korinayay dee haddana dee lamaanahaygii layla koriyo. hase ahaatee arrintaasi way noo suurto gashay oo ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiya aabbe iyo hooyo oo nool oon aad u salaamayo aadna aan u jeclahay ayaa hawshaasi garab iga soo siiyey, iyo walaalahay intii ila noolayd iyo intii dibadda iga fogeyd ba ma garanaysaa aan ii muuqanba. adigu waxaan noqonay qoys markaa qoyskii ku dul nool. halkaasaan ku noolayn muddo aan ku qiyaasayo sanado. hase ahaatee
nolosha aan ku noolayn iyo farxadda aan u haysanay iyo habka aan u noolaynin waa hab aanan u malaynaynin inaan u noolaan doono tusaale ahaan farxadda iyo nolosha aan haystay waxa weeye waxaan guriga qolna laga siiyey halkaasaan deganayn waxaana soo martay waqtiga qaarkood aanu hal barkin wadaagaynay ayaan soo martay waqtiga qaar laakiin aanu haysanay inaan ku noolnahay adduunyada meesha usrisin waxaan ku noolayn farxad waxaan ka heli jiray farxad waxay siin jirtay farxad waxaan la noolaa farxad waxaan ahaa taajir waxay ahay taajirad umaanaan haysan nolosha inay cid naga sarayso hase ahaatee damiirkaygii wuxuu markaa isiin waayey inaan yani aan dee la isii koriyo oo noloshan aan dee garanaysaa ku sii jiro waxaan ku tashaday ama aan kula tashaday iyada inaan ka tega jid kale ma furnee tahriibo wadan South Africa la yiraahdo markaa loo tahriibi jiray South Africa way halis badnayd iyadii halkii baan kaga tegey hooyey la sii noolayd meel halis badan baan aan tegey oo aad moodo inaanay dad bini aadaniba meesha ku noolayn khatar badan leh inaad warkeeda maqashay marmarin South Africa waan silway markaa dib baan usoo noqday waxaan soo noqday familkii oo intiisii badnayd looftay balse gabadhii ay gurigii ku nooshahay iyo intii familka hadhay halkii baan noloshii kula wadaagay mar labaad oo lagu soo dhaweeyey gacmo furan hase ahaatee waxaa dhacday in aan silugay in haddana aniga koriinkaygii una dhammaanin oo weli korinayo waxaan go-aan ku qaatay markaa inaan sidii aan u samata bixin lahaa naftayda aan uga samata bixin lahaa inaan dee waalidkaygii halkii waqtigii waxaan gaadhay anigu aan korin lahaa anigu aan hayn lahaa anigu aan magaranaysaa inaan naftaydana wax taro dee aan ehelkaygana wax u tari lahaa aniga wax taraya ilaa waqtigaas marka waxaan go-aan qaatay markaa inaan jid kale bannaanayn waxaan go-aan qaatay inaan isku tuuro badda waxaan u bareeray dhimashada waxaan u bareeray inaan dhinto amaan meeshaa ka gudbo yaan u bareeray waxaa dhacday in haddaba aan la noolayn intii aan safarka gelin ciriiri badan oo nagaga imanayey magaranaysaa bannaanka dibadda oo ka baxsanaa annaga seerkalkan ku jirna ka baxsanaa laakiin nagu imanayey oo dibadda nagaga imanayey culays badan ayaan markaa qaadi kari waayey oo isna dhib igu noqday oo culays igu noqday kadib culayskaasina wuxuu igu keenay mashaakil badan oo fikir iyo in dadku ay moodayaan in loola cadaynayo oo la faraxsan ay moodayaan oo raaxaysanayo magaranaysaa laakiin ayna garanayn yani gudahayga dhibka uu ku haya culayskaas dibadda nagaga imisaan u raaligeliyey haddaba raaligelin baan ka raadiyey ama fudayd baan ka raadiyey meel ka baxsan noloshayda waa qaladaadka aan ku sheegayey in wax laga barto yacnihii in aad fudayd ka raadiso wax aad culays u arkayso dibadda kaaga imanaya laakiin inaad ka raadiso fudayd ma aha meel adiga kaa baxsan ama lamaanahaaga iyo noloshaada ka baxsan waad ka raadisaa lamaanahaaga waxyaabaha ujeedada aan barnaamijkan aan magaranaysaa way intiina ka gudbin culayska bannaankeeda kaga imanayay bal maxaad nooga sheegi kartaa culayskaasi xaguu ku wajahnaa ma cid kale oo xidhiir jacayl dhinaceeda ka yimiba ma dhinacaaga xidhiir jacayl oo ka yimiba mise arrin kale oo culays ah oo dhinaca faamiligeeda kaga timiba bal maxay ahayd culayska sheegaysayd soo wajah horta culayskaasi wuxuu ahaa asaliyan wuxuu salka ku hayay awlaadana ilaahay baa bixiya ilaahay waqtigu awlaadda ku siinaya ee saxda aan isaga yaqaana waxaa laga yaabaa ilmaha waqtigaas
jarayna wada culayskaasi wuxuu salka ku hayay awlaadda ilaah bixiya ilaahay isagaa dee awood leh wuxuuna og yahay ilaahay xilliga ama waqtiga ku habboon inaad ilmo dhasho way waxa laga yaabaa xilliganba inuu haddii ilmo lagu siiyo uu khatar kugu yahay adiga inuu diintaba khatar ku yahay ama dalkaba uu khatar ku yahay marka ilaahay isagaa garanaya waqtiga laakiin culayskaasi wuxuu ahaa awlaad la'aan buu ahaa waxaan isku dayay marar badan oo dhakhtarra inaan gabadha geeyo laakiin anigu ma arkayn inaan bila awlaadahay muddo intee leeg bay awlaad la'aantaas ay dadku muddo intee leeg bay qaadatay wallaahi waxay qaadatay waxaan oran karaa muddo ilaa 5 sano ah ay qaataan filaya ka taasa keentay cadaadis leeyahay laakiin anigu awlaad la'aan ma ahayn anigu awlaad waan haystay naxariista iyo kalgacaylka iyo dhoola cadaynta iyo farxadda iyo noloshan aan haysto ayaa awlaad ii ahayd dadku waxay ii arkayeen inaan bila awlaad ahay laakiin anigu marnaba awlaad la'aan ma ahayn way talaabada qaaday maxay ahayd waa mid noocee ahayd markii cadaadiskaas aad u adkeysan weydii cadaadiska markaan u adkeysan waayay talaabadan qaaday waxay ahayd in aan isku filaado waalidkiina aan ku filaado xilligan waalidkayga caawinayo annaan caawiyo waalidkayga anna isku filaadno anugu aan marka isku filaado marka hore anugu aan isku filaado marka labaadna dee aan waalidkayga iyo ehelkayga ku filaado oo aan noqdo dee nin magaranaysaa aan la korinayn dee korniinkeena ka hoosbaxo ayaa magaranaysaa arrintaasi igu marka ma waxaad qaadatay go'aanka ah inaad gabadhii kala tagtaan oo sidii lagu lahaaya cadaadisku ahaaya ha kala taga ayaad go'aan qaadatay markii aad tahriibtay ee aad ku guulaysatay tahriibkayga kala taga si toosa looma odhanin oo kala taga may dhicin waxa dhacday dareen baa dhacay nooga yimid dibadda laakiin waxa ay kala taga may imanin markaasaan go'aan qaatay inaan helo bal fudayd ma garanaysaa culayskan aan ku bedelo fudaydkana waxaan ka dhex arkay inaan halkaa ka heli karo oo badda markaan ka tallaabo wax fudan doona in ka dhex arkay balse markasta sidaa rabta ma noqonayso waxa dhacaya wax aanad jeclayn inay dhacaan wax aad jeceshahay inay dhacaan baad waayeysaa waqtiga qaarkood waxa dhacay markaan badda ka tallaabay inaan gabadhii warqaddii soo siiyey oo aan soo furay balse qaladkaasi yahay qaladkii ugu weynaa noloshada intaa sameeyey umana malaynaya qaladkaas oo kale aan samayn doono waxaan dareemayaa inaan bulshada horteeda ka sheego ilaahayna inagu naxariisanayo aniguna aan ku bogsoonayo balse waxa iga sii xanuun badnaa gabadhii markii ay warqaddii soo diray culays badan bay la kulantay loo soo tacsidiyey sidii qof uu dhintay oo kale ee lagu soo tacsidiyey dadku si tacsido kale igu yimaadeen waa ku noolaan karowday bulshada dhexdeeda dad la garanayna ahay waxaa dhacday markaa in sorry raaliga ho way waxaa dhacday markaa in ay gabadhii go'aan qaadatay aada u qarad oo ay ku kaliftay nafta ay nafta ku kaliftay go'aankaasi wuxuu ahaa inay bartii aan maray ay martay si ay nooga badbaado halista ku geedaamana ku hareeraysan oo dadkan ay la kulmayso dee dadka ay la kulmayso iyo dadkii ehelkeedina nolol macaan baa la arkay ee la socday jawiyadii macaankii aan kuu sheegay baa dhamaado qaraarkii baa bilaabmay maxaan ku guri waa qaraar iyo qaraar diris ah wali waxay ka dhaxayaan baan guri marka bulshadii bay ciriiriyay dee ay kula noolaan kala weyday marka waxay door biday inaan halkii aan maray ay marto halista u bareedho inaan halista u bareedhay markaa waan ku gaadhay wayna u bareedhay halkii bay martay oo ay ilaahayna ka badbaadiyey balse muddo badan markii ay ka soo wareegtay ilaa qof bini aadan oo qalad sameeyey baan ahay moogtay
qofku inuu qalad baan sameeyay ma ha waxan ama cabsi kama qabo laakiin dadku waxay u aqaanaan inay tahay wax qaldan oo ma in kaliya bulshada Soomaaliyeed daawanaysa halka waxaan la soo fariistay waa nolosheedii laakiin waan ku raaxaysanaya ilaahayna ugu naxariisanaya qofkii iyaguna ku tusaale qaadanay intaan uga dalnay intaan waxa dhacday haddaba noloshii baan haddaba hanaankeedii baan anigu sii waday oo aan sii waday laakiin waxaan la kulmay marba waxaan la kulmay waji nolol wax aan qurux badnayn oo aan raali gelinin aniga oo wanaag dhiibaya oo farxad bixinaya oo qalbi iyo yani naf huraya ayaa waxaan la kulmay yani wax aan aniga ii qalmin mar walba wanaag baan dhiibaya oo aan bixinaya jacayl baan dhiibaya qalbi baan dhiibaya kalgacayl wax walba waxba lama harayo haddana wixii waxaan ka helayaa jawaab qaldan oo ah inaan waxa siir islahayn waxaan islahayn halkii aan ka sugiyay inay hirgasho ayaan helayaa wax kale markaan noloshii ciidiga dareemay ayaa sinniyo war abdiyo war ilaahay baan qaldamine qalad baad gashay niyo malaha meesha laga raacay waa halkii ka wardan telefoon baan raadiyay telefoonkii baan soo helay telefoonkii markaan soo helay waxa dhacday markaan telefoonkii soo helay een gabadhii wacay een hallow koori assalaamu calaykum waa hebel ay salaanta iga qaaday si fiican bay soo dhaweysay waxaan ku yiri markaa walaal waxaan rabaa inaad isaamaxdo waxaan arkay waxaan abaalkayga ahayn baan la kulmay balse waxaan kaa xudsanayaa saamaxaad baan markaa gabadhi waxaan u malaynayaa ama aan jeclahay inay xaggaaga wax ka socdaan isaamax haddaba jawaabta aan ka helay iyada ayaa kasii duwanaatay ayaa waxa igu noqotay wax maskaxdaydii ka weynaada oo haban anigiiba qaadi kari waayo gabadhii waxay igu tiri adiga oon iga dalbanin saamaxaad ayaan ku saamaxay waa fahmi waayniga ma aniga oo qaladka intaa la eg kugu sameeyey ayaa waxa aad isaamaxday anigoo saamaxaad ka dalbanin maxay tahay in ku mutaystay dhibta aad soo martay baan ku mariyay aniga waa lagu tacsiidiyey sidii laga geeriyooday oo qof kaa dhintay haddana maqsadii leedahay waan ku saamaxay haddana waxaad leedahay waan ku saamaxay sidee ku dhici kartaa bal maxaa dhacay waxay tiri waan ku saamaxay oo weliba waxa aan ka warwaraa noloshaada dambe cidda aad la kulmi lahayd noloshaada dambe cidda aad la kulmi lahayd sida ay kaa yeeli doonto ayaa ka warwaraa haddana tii baan qaadi kari waayo nolosheeda dambe yani cidda aan la kulmi doonaad ka warwartaa anoo saamaxaad ku tinaya haabay tiri laakiin sababta maad garanaysaa bay tiri waayahay maxay tiri sababta kolle waan dareemayayo xaalad adag markaad ka sheekeynaysa qisada waana kaaga raali gelinaynaa daawadayaashana waan ka cudur daarayaa oo anigii hore u sii dardaarayay lahaa jawiyo kala duwan bay geli doonaa marka iyaga laftigooduna way inoogu dul qaadan doonaan xaaladaynu ku sugannahay waynu iska sii wadanaynaa maasantahay sorry waxaa igu tiri waxaan kugu saamaxay ama aan uga walwalaa noloshaada sida ay noqon doonto ama ciddaad la kulmi doonto naxariistaadii iyo habdhaqankaagii iyo weygii aad iila noolayd ee aan u ahaa qof aan ciriiri dareemin ama aan ciriiri daris lahayn taajirad baan ahaa farxad baan ku noolaa oo maalmalayna waxay ga maqlaayeen habdhaqankii aad iila noolayd qofkii aad ahayd eed kula noolayd naftayda sidii aad ii xanaacin jirtay qofnimadaadii baan kugu ilaaway kugu samaxay balse waxaan ka fikirayaa qofka dambe aad la kulmi doontaa sida uu ku la noolaan doono ama sida uu ku la dhaqmi doono sida kuu garan doono
kaa heli doonaan ka fikiraa balse haddii bini aadanka calooshooda la itusi lahaa waana arki karin calooshooda haddii la itusi lahaa bay tiri waxa aan kuu doori lahaa qofkii kuu qalmiyey laakiin ma arki kara calooshooda waa kelmad aada u culus saameynteedana leh waay cabdi curiye annagoo kaaga raali gelinaynaa qisadan dareenka leh ee murugada leh inaanu sii wadwadno kolley dee suugaanyahan baa tahay dhinaca suugaanta ereyo kala duwan ka sameeya oo heesihiisana dadku ay dhegaystaan inta badan heesahaaga dadku ha dhegaystaan laakiin qisada ku duugan inta badan ma hayaan bal erayo aad ka samaysay dhacdadan ku soo martay maxaad nooga xasuusin kartaa maad noo sheegi kartaa dhacdadan horta iyada waan macnayn kari waayey erayo gabadhaas waan markaan macnayn kari waayey waxaan sameeyey heestan oo aan yacnihii ku sheegayo yacnihii cisiga iyo karaamada caadilkeena bixiyo waa mid aan la celin karin iyada maan waxaan u tusaaliyey si aan dee la qiyaasi karaynin xubnaheeda iyo qaabka ilaahay u sameeyey maanan macnaynin iyada waxaan ku macneeyey cisiga iyo karaamada caadilkeena bixiyo waa mid aan la celin karin caynadiisa aadmigu colaada iyo afgarashada uu ku kala cod dheeryahay heesta waxaa la dhahaa ka noqon qalbiga caydh qisada gabadhaas waxaan ka sameeyey heestan marna naftaydan ku dardaarayaa iyada marna waxaan ku tilmaamayaa cisi iyo karaamo ilaahay siiyey inaan qofna qof garanaysaa una ka qaadi karin karaamada iyo cisi aana jirin oo ilaahay biciisiye karaamo u siiyey aniguna waxa aan isku tilmaamayaa in aan hore u socdo oo aan magaranaysa aan halkaa ka dhaqaaqo kulantideediina waan tilmaamay oo anigi lahaayeen cindiga adigoon ku hayn baa curashada kalgacalkuna cidlo kugu haleeshaa calafkaaga guurkuna hadduu meel ciriiriya ana isla hadlaya markaa cisiga iyo karaamada iyadaan la hadlayaa laakiin dadku ma fahmayaan ma garan karaan anaa isla hadlaya waxaa idhi calafkaaga guurkuna hadduu meel ciriiriya kaa galaa calooliyow almar ruux kaleeto ha ka noqon qalbiga caydh waxaad isku dhiirigelinaysaa si aanan u dhimanin de anigu ama aan dhaawac ii soo gaadhin yani waxaan anaa isbadbaadinayaa waa tilmaan iyo badbaado heesto waa tilmaan dahsoonoo la fahmi karin waxaan u jeedo iyo badbaado anigu aan iskabaya oo aan nafteeda aan kabaya cabdi curiye qisadan kulli waa qisada saameynteeda leh oo aan dareemi karo adiga xanuunka ay kugu leedahay inaad ka sheekayso iyo inaad bulshada la wadaagto bal maxaynu midhiya laba ka baran karnaa qisadaas oo aad odhan kartaa noloshayada quruxda badneed waxay u burburtay sidaa iyo sidaa ee dadku ha ka feejignaadaan maadaama barnaamijkan ujeedadiisu ay tahay inay wax ka bartaan dadka okay waxa aan ka odhan karaa midhaa horta intaan midhaa wax ka odhanin iyadana mar labaad saamaxaad baan ka weydiisanaya shacbiga soomaaliyeedna ila way ka mid ahayd saamaxaad baan ka weydiisanaya iga saamaxaritaas ilaahayna de horaan ugu weydiistay haddana waan ka weydiisanaya mar saddexaad iyo mar afraadba qisada waxaan odhan karaa ama aan ugu talagalay in laga barto farxadda iyo nolosha dhadhankeeda macaan iyo sida aad rabta inay kuu noqoto ha ka raadinin meel ka baxsan naftaada iyo nafta lamaanahaaga iyo noloshaada meel ka baxsan inaad farxad ka baadi goobto aan ka raadinin cid kale raaligelinteeda cid kale ha raaligelin ha ku raaligelin naftaada yani naftaada ha uga baadi goobin naf ruux kale ku jirta afeeda inaad raaligelin uga hesho taada waa qodobka ugu weyn ee qisada laga qaaday aad iyo aad baad mahadsantahay adaa mudan